وزير الدولة arrimaha dibadda Soomaaliya علي محمد عمر علي بلعد oo ka tirsan wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee ku sugan dalka Itoobiya ayaa qayb ka mid ah wareysi uu siiyay VOA waxa uu uga hadlay arrimaha ku gadaaman in ciidanka Soomaaliyeed ee tababarka u jooga dalka Eritrea dib loogu soo celin doono dalkooda. wasiirka ayaa sheegay in tallaabada la fulinayo ballanqaadkii madaxweynaha in ciidankaasi dalka lagu soo celin doono balse ay u baahan tahay in tallaabadaasi la qaado qarash aad u badan. sidoo kale wasiirka dawladda arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu xusay dawladda Soomaaliya ay raadinayso codka gacantiisa soo celinta ciidankaasi iyo qarashka ku baxaya. sidii madaxweynuhu sheegay ciidankaasi waa la soo celin doonaa laakiin soo celintooda waxay u baahan tahay dhaqaale badan sida gaadiid xeriyihii la dejin lahaa iyo qalabkii ay ku dagaalami lahaayeen. marka waxaa socotay raadinta waxyaabahaas oo dhan iyo in wada hadalladii ku saabsanaa haddii alla yiraahdo waqti dhow ayaa ciidankaasi la soo celinaya ayuu yiri wasiirka dawladda arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Balcad. warar aan la xaqiijinay waxa ay sheegaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qorsheynayo in safar kale oo maalmaha soo socda ku tago dalka Eritrea si arrimaha soo celinta ciidankaasi uu hore uu si dhaqaajiyo. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maalmo kadib markii la doortay ka degay Asmara waxaana markaas la arkay muuqaallo lana helay xogta ciidankii uu farmaajo tababarka u geeyay dalkaasi oo muddo fog laga joogo 3 sano. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ololihiisa doorashada ku galay in si degdeg ah oo ciidankaasi dalka dib ugu soo celin doono haddii la doorto si ballanqaadkaasi uu fuliyo Eritrea waxay ka mid tahay dalalkii ugu horreeyay u safray sababta ilaa iyo hadda loo soo celin laayahay ciidankaasi tababarka dhameystay sanadkii 2020 waxaa la aaminsan yahay inay tahay qarash la'aan iyo deegaan la'aan siyaasadeed oo dalka ka jirtay wixii hadda ka horreeyay